waxaana wanaagsan saaxiibayaal halkani waa kanaalka Daldugso maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij dadka badankooda ka dhex guuxaya kaas oo ah kooxda mugga iyo miisaan kale Hope Films meeday xagay ku dambeysay Dema Films waxay qorsheeda yaa ka dambeeya inay najmanalku iyo sida oo kale sabax ay ka baxaan Hope Films oo ay tagaan Dema Films sababta ay asma iyana uga baxday Dema Films ay u tagtay Hope Films su'aasha ugu weyn ee dadka ka dhex guuxaysa oo ah meeday Muuna Faysal qorsheedu muxuu yahay kuwaas iyo kuwa kale oo daahsoon ayaan ku sheegi doonaa daahana kaaga rogi doonaa ku soo dhawow channelka waa Daldugso isagoon waxba ka qalin doonin bal intaynaan u guda galin barnaamijka oo dhameystiran haddii aad nagu cusub tahay nala saaxiib oo subscribe saar gambaleel kana siifro si aad u hesho barnaamijyada aflaatan saacal ka soo galino haddii aad saaxiib nala tahay oo aad hore noola socon jirtay muuqaalka leeg saarsiina shargare daawadayaal waxaan la soconay in bilowgii sanadkii 2020 ay soo shacbixeen dhalinyaro jalayaal aad u da'yara runtii leh ismaqal kala dambeyn oo la magac baxay Hope Films kuwaas oo soo gudbin jiray riwaayadku aad ugu xidhnaayeen oo aad loo xiisayn jiray haddaba kooxdii isku xidhnada isku duubnayd ee garwadanka uu ka ahaa injineer Xamse Qalinle ayaa waxa mar kaliya laga war helay labadii xidig ee raggii meesha lahaa oo kala ah Madar iyo Dayax ayaa mar qura ka dhawaajiyay in ay ka baxeen kooxda Hope Films intaas wixii ka dambeeyay waxa gabaabsi ku yimid kooxdii Hope Films Madar iyo Dayax oo aan bal u kuur galay meeqaamka ay bulshada ku leeyihiin ayaa waxa ay sameeyeen channel cusub oo la magac baxay Dema Films intaas wixii ka dambeeyay waxa waji cusub xaalad cusub yeeshay arrinka labada kooxood kuwaas oo bilaabay xifaaltan iyo tartan adag oo haddaba waxa jira in maalintii u dambeysay labada koox kala boobayeen jalayaasha u kala jira oo waxaad arkaysay Asma Oromo iyo Minuto oo ka tirsan Dema Films oo loogu soo dhaweynayo Hope Films iyo sidoo kale najmanalka iyo sabax ayaa ka baxay Hope Films oo galay Dema Films waxaad garan kartaa haddaad aqli leedahay ku badan xamaasada leh ee meesha ka socota haddaba su'aashan isweydiinaya anigu adna isweydiinaysaa waa meeday xidigtii Muuna Faysal haddaba anoo u kuur galay arrinkaasi ayaa waxaan sooday in ay Muuni ay ka dhex baxday dagaalka ka dhaxeeya labadan kooxood iyadoo oo tiri midna raaci maayo ee waxaan kala kacsanayaa channelkayga iyadoona qaadatay go'aan geesinimo leh run ahaan haddaba Madar oo ah ninka ugu tunka weyn kooxda Dema Films ayaa waxa uu ballan ku qaaday inuu burburin doono kooxdan Hope Films haddaba Dema Films ayaa ula baxday kooxdii ay saaxiibada ahaayeen ee Hope Films iyaga oo ula baxay Hope Finish halka Dema Films lagu xanto Hope Films dhexdeesa Dema Finish haddaba daawadayaal Hope Films ayaa si ay khadka uga saarto kooxda ka dambeysay ee tartanka kula jirta tartanka kala dhaxeeya ayaa waxay soo wadaa filmaan badan sida ay Dema Filmsna sidoo kale iyana soo wado filmaan badan haddaba labadan kooxood ee tartanka ka dhaxeeya haddii aad tahay mid ku xidhan fadlan annagana nagu soo biir oo subscribe nagu sharaf karaama korkaaga ha ahaatee